habeen wanaagsan dhammaantiinba afrikada bari saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah ku soo dhawaada daqiiqadaha wararka qodobadan idin hayo caawa waxa kamid ah xaalka magaalada Laascaanood oo maanta waxoogaa ka yara degan sidii maalmihii hore uu ahaa walow magaalada internetka gabi ahaanba uu ka maqan yahay Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ka hadlay waxa Laascaanood ka socday sagaalkii dad Soomaaliyeed dhashiikiyaal lagu dilo waa arrin aan loo fadhin waxa kaloon idin haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta markii ugu horeysay Muqdisho kula hadlay boqolaalka askari ee dhawaan Eritrea laga soo celiyay meydka dad horay ay shabaabka u laayeen oo maanta dib loo aasay askari qabtay tuug gabar telefoon ka dafay oo isna la abaalmariyay gabadhu hadalkeedii waxa marka ay aad ii dhibay oo ku celcelisay laba cisho ayaan haystay bay ku celcelisay iPhone buu ahaa laba cisho ayaan haystay deegaanka Wajeer waxa ka taagan abaara aafeeyay dad iyo duunyaba وهجاج أنكو بالله إن كستو معلمها وحي دعيي أي ما أنت حالته كدوانيت هذانا مقالة وحا كجرة دكتونان ددوينها عريسان يعيدا كسومالي لأن إسكسو هرجيدنا مدول بدين عيسى أيو دفاع كجرة وحرب شضاء راوع يدي مشاعثة ما أنت معي صندعين الرماء سيدا وين حكومة السومالي لأن لو قلنا ليلا يانا وحا كمدا إنا يسنبكهلين دادكي لدلي سيدا اللو دلي إيا إنت لا بلغا قاضو gacantii ay dadkaasi ku baxeenba eedaha ugu badanna waxay ka imanayaan gudaha Somaliland iyo banaankaba Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland kana soo jeeda magaalada Laascaanood lagana soo doorto ayaa ku baaqay in ciidanka magaalada ku sugan waa Laascaanoode laga qaado oo xiriyaha lagu celiyo asleey talaabada koowaad ee ay tahay in la qaado inay tahay halka caburin iyo agajuuleen arrinta aan inaan lagu xallin karin ay noqoto marka koowaad in magaalada gudaheeda ciidamada laga saaro xiriyahoodina lagu celiyo marka labaadna inay dawladdu la timaado barnaamij lagu xallinayo dhibaatada intii hore ee dhacday ee soo socotay muddada dheer jirtay iyo inta ay iidu ka dabageysay hadeer la ogyahay labadaba marka saddexaad saddex maalmood markaad xilka hayay baan hore u sheegay deegaanka maxaan raday beelahaasi ay degaan marka la isku darbo beelaha dhumaantay sangeli dadkii materi lahaa maaha dadka inta badan xeelka iyo mas'uuliyadda ka hay deegaanadaas in dadkii wax ka go'ayeen lala tashado laysuna yimaado oo ay la timaado qorshe nabadeed xukuumaddu horaadu ogeed xukuumadda Axmed Maxamed Siilaaye waxay dhigtay gogol nabadeed waxay ka wada hadleen Khaatumo oo markaa ahayd jabhad hubaysan wada hadalku meel buu gaaray inkastoo ay ku kala qaybsadeen haddana wixii la isla gaaray hal qodob kama fulin xukuumaddani markii ay dhalatay marka waxay u baahan tahay talay u baahan tahay aqli bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in qorshe dhammaystiran xukuumaddu la timaado haddii kalena ay iclaamiso oo ay cadayso inay ku fashilantay arrinta nabadgelyada gobolka wax ka qabto dhinaca kale Saciid Cabdullaahi Maxamed aw Nuur Saciid Dani madaxweynaha Puntland ayaa isna maanta ka hadlay xaaladda Laascaanood ka taagan wixii dadka Somaliland ay uga caban jireen dawladdii hore ee militariga ahayd inay maanta ay sameynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaas ah inay soo afjarmaan gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xoog ah ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan dhinaca kale wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in la dhageysto lana yeelo waxa dadka halkaasi ku nool guud ahaan Sool Sanaag iyo Cayn ay mustaqbalkooda kaga taliyaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jooji karo meel aysan rabin cidna laguma xiri karo waxa ka soo hara Soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaale meeshii ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan anagu la qanacsannahay laakiin marna ma aqbaleeno in la dulaysto in la dilo in la xasuuqo وهجاج وركي Laascaanood ayaan ku jirnaaye beesha caalamka ayaa war qoraal ah oo la baahiyay ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin shacabka magaaladaasi lagu laayay waa beesha caalamka isla markaana waxa lagu baaqay xasilooni iyo deganaan aan intaas kaga baxo wararkii Laascaanood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xirab ku taala magaalada Muqdisho kula hadlay boqolaal wiil oo ciidankii cusbay Eritrea laga soo celiyay ciidankan ayaa madaxweynuhu wuxuu u sheegay inay u diyaar garoobaan duulaan lagu qaado deegaanada shabaabku ay haystaan ciidankan oo muddo badan ba la hadal hayay joogitaankoodii Eritreana muran weyn uu ka dhashay ayaan weli wax u loo qaybinin
imaatinkoodana wuxuu ku soo aadayaa xilli gobollo badan oo Soomaaliya ah uu dagaal ka socdo waxaana loo arkaa xoog iyo dhiig cusub oo ku soo biiray ciidanka xabadda ku ridaya ururka al-shabaab dagaalka macawisleyda iyo al-shabaab odayaal horay ugu dhintay meedkoodana ay shabaab qaateen ayaa lagu soo warramayaa in hadda la soo helay waxyaabihii ka haray meedkaasi laguna aasay meel ka mid ah Hiiraan nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay meedadka maanta la aasay waxaan aasaynaa toddobadii marxuum ee ku shahiiday dagaalkii Ceelqooxle 29 bishii 9aad 2022 oo ugu weynaa Allah u naxariista dhamaantooda nabadoon cilmi hagar guure isagoo halkan ay aheeday halkii uu dhaarta ku maray waxaan u garanay in meydkiisa qabuurihiisa ama lafihiisa aan halkan keensano argagixisadu waxay muddo dheer ay ku taamayeen inaynan dadkan deegaankan ama dadka nabadoonka u ahaa aysan arki doonin lafahooda way dheereeyeen kolkii hore waxay geeyeen aadan yabaal markii labaadna way ka sii rareen maadaama xoogaa ay noo sii dhowdahay waxay sii geeyeen meel ka fog oo la yiraahdo Alkawsar haatana sheeko cajiib ah waa jigjiga askari traafika ah oo wadada taagna ayaa wuxuu arkay tuu gabar ka dafay mobile iPhone ah gabadhu way qaylisay oo waliba tolaayay ayay tiri askarigu isaan waayay oo uu damqaday tuugii buu ka daba tagay wixii meeshaasi ka dhacay kadib askarigii darajo ayaa loogu daray waana la abaalmariyay bal askarigaasi ha noo sheego qaabkii uu tuuga u soo qabtay gabadhu hadalkeedii waxa marka ay aad ii dhibay oo ku celcelisay laba cisho ayaan haystay bay ku celcelisay iPhone buu ahaa laba cisho aan haystay ereygaasaan marka aniga dareenkayga aad u soo jiitay oo aan waxaweyaan inaan gabadhii ku soo noqday marnaba aan awoodi waayay inaan ninkaas soo qabto mooyeen meeshu meel aad u kallay ruuxii galayn baa garan kara ilaa hadduu dareenkaygu isu bedelayaa kolkii hore caadi baan ahaa laakiin hadda xusuus gaar ahaan galay alxamdulilah maantana anu ismanahayn maanta halkan ay gaari doontaa ismanahayn kollaba laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyiintayda guud ahaan waad mahadsantihiin baan leeyahay وهجاك أن جيجا كتجنو أو حاجة يا وجير أن آدمو أبا رب أن أي ألك الصومالي ذا كجرا جودهان أفريقيا ذا بري ديجانا ذا وجير أي كمذا ميلها لقو حول بالي أبهن أي كمذا رجع كعير توبي حوله هذين أي كنا مادين أبارتن يرفعت كجرا دبعت هذا ما شهرت كذا عدي ودبعت الرباني وحقنا الله إلهي ككين عد هذا ما أنت اللي عرايا مرة أنا واحد جرا تري الاحتناط كتوكا 1971 يبرق الدحدودة كان أخرى تقولي يا مصومر أنت أنا وارع في جري سببتو أفر سنة أو كاملة سنة كشنادن قلينا واحد سنة أو نوفلين إلهي نمسيني ما دام أساس أيتاهي واحد هذا ماشي عن أكتي دام قذا شيء ديالا وأريجيدي وحن لها شن بقولون نف وأريه شن تبقول نف وأريه وحن لها ساكي وحكنول 25 neef ka nool kutooka ila baasir ila hada tuulada aan joogno dadaan talaay dhibaatada meesha aan taala ma aha wax hadda ila baaadna wax ka qaban kara si aan ila tahay وهجاك قدوميها هيئة مارين تمسيبوين كقرنك أو مالمهم بتركيا وكسقنا أيا وحو أكل جوشيا أنكرية اسطنبول وحو رادينيا تاجرو هيل يهوبله أو هيئة أو كعصب صوماليا دبنا بورك اللوغة جفاي ورادينيو دوان وحو لكل ما قدوميها هيئة مارين تمسيبوين مدح كترسن هيئة سمافلكي يجرجار كبحية تركيا دوان أي أهد مركي هيئة كهرتجة مسيبوين أي مقالة بورها كبه أو شبابكو أي قدوميين راشين لجارسيي راشين كاسو معهن مد مالك لكيمد بقاردي مقالة كويالي أي هادو راشين كيبيسي إسلا مقالة والقو قيبيي إن كستو ولي لشيغيو باهيها جرا إيا تبرت هيئة جرجاركا إيا وحا أي بحينيسو أي آدو كلا فوقيهين وهجاك ugu dambayntiina waxaan idin hayaa duco cajiib ah bal idinkana aamiinta noo raaciya wixii buu ka birdhax Allah ka dhigo gacan malaayigeed Allah mariyo
halka cudurku fadhiyo caafimaad allah u dhigo baadideena iyo beelahadeena dadkeena iyo dunyadeena ba allah inoo xiftiyo malagnaadiye iyo muumin xafido allah inoogu diro dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena iyo dawladeena iyo dalgeena ba kor allah yeelo بإذن الله كريمة تنظرك المؤمنين يا مسلمين تكعبت الله كدقو بلد الأمن الله كدقو بلد الرزق الله كدقو بلد الفتح الله كدقو بلد العيسى الله كدقو بلد الإيمان الله كدقو بلد الدين الله كدقو بستانك أولياء الله كدقو بشلق بشلق الله كدقو روب إيا النبض إيا النصر الله ود الهين السيو مدح الدين الله ينوغاتي مدح الدولة الله ينوغاتي مدح نقمتك الله ينوغاتي أمتك يوريا الله ينوغاتي آخرين يا دنيا نبا الله ينوحفتيو barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka caawa intaasaan ku ekaynayaa barnaamij soo saaraheenna caawa waa cabdifataax imaam waad ku mahadsantihiin daawashadiinna tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo